xildhibaan Naasir Cali Shire oo maanta mar waraysi gaar ah siinayay telefishinka caalamiga ee Som News TV ayaa waxa uu shaaciyay inay jaamacadda Golis qaybteeda Berbera ay bilowday kulliyadda saxaafadda isagoo ugu bishaareeyay shacabka reer Berbera inay ka faa'iideystaan kulliyadda ay u bilowday jaamacaddaasi waxaana hadaladiisii kamid ahaa sida tan saxaafaddu waxa kamid tahay waxyaabahan jeclahay runtii waana taageeraa waxaana taageerada ku cadeynaya sanadkan jaamacadda Golis ee Berbera waxaan ku darnay kulliyadda journalism waan doonayo ugu baaqayo dhammaan saxafiyiinta gobolka Saaxil iyo gobolada kale sidii cidii danaynaysa saxaafadda inay badan ka shaqeyn karaan laba waxaan ahaa 5 sano ayaan saxafi ahaa oo aan kamarada halka ku sidii jiray saymka ku sidii waxaan ahaa wariye ka shaqeeya laanta afka Soomaaliga ee idaacadda Qaahira wariye kaliya maana waxaan ahaa ninka waxaan kala yiraahdo tafatire waxaan kala ahaa mid waxaan ku shaqeyn jiray inaan isku turjuma luqadda afka Carabiga iyo luqadda afka Soomaaliga waan ku shaqeyn jiray 5 sano ayaan ka shaqeyn waana halka runtii khibrad badan oo saxaafadda iyo waraysiyada dhinaca kalena xildhibaan Naasir Cali Shire waxa uu sheegay in xilka qaadistii uu ku sameeyay gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Baasha Maxamed Faarax ay ahayd mid sharci darro ah isagoo sababeeyay sababta uu ku aqbalay xilka qaadistii lagu sameeyay xeer hoosaadka golaha wakiiladu wuxuu si cad u sheegayaa gudiyadu iyaga iska dhex doorto gudoomiyaha bal iminka markaan baneeyay jagadi gudoominimada gudidii waqadmi uu qoray uu leeyahay waxaan idin magacaabay hebel gudoomo kan may iyaga ayaa iska dhex doortay gudoomiyada anina ma kala gudaay doortay waxa kaliya iridi kala gud ay xaq leh xeer hoosaadka golaha wakiiladu wuxuu sheegayaa in aanu kaligay shakhsi isku bedel sameyn karin in sanadku ku soo wareego ama laba sano soo wareegto inuu gudoomiyo gudiyada oo dhan isku bedeli karo laakiin in qof la taageerayo oo qof si gaar meel looga baxo xeer hoosaadka golaha wakiilada kusto markaana waliba waxa dheer wax muxuu ahaa dambi waan galay oo ama gudida aan shaxmarinta ee golaha wakiilada ama gudida hoosaadka golaha wakiilada la gudbiyay ma jirto waa go'aan oo kaliya qaatay haddii aanu gudoomiyaha golaha wakiilada sharci u lahayn in uu xilka ka qaado maxaad u aqbashay wallahi ataanu nin weyn baan ahay marafo waxaan xeeriyaa danta guud waxaan isir hadaad qeylqeyliso oo maartay aad golaha rabash ka abuurto oo golahaygi magaca golahan ilaaliyo iyo sharafta iyo karaamada qaranimo ee Soomaaliya waya Sirax Abdullaahi Yasrashka muqbayaha caalamiga Somali News gudaha caasimadda Hargeysa.